Many people dad badan believe waxay aaminsan yihiin that they are allergic to penicillin class يعني in fasalkan penicillin class daawooyinka soo jeedaan ee xasaasiyad ku qabaan. However, si kastay ahaatee true penicillin allergy is real يعني dhab ahaan markii laga hadlo fasalkan penicillinkan daawooyinka soo jeedaan dadka haddii lacala xasaasiyad ku qabaan waa un dhif anda iyo only occurs waxayna ku dhacdaa oo kaliya dadkan markii adiga xasaasiyad ay ku dhacayso in 0.01 to 0.05% يعني بقولكيبا eber دبع eber hal إلا iyo بقولكيبا eber دبع eber shan of people ذاتك who take وسوقة penicillin يعني فصل كان penicillin كان داوين كذا أو كسو جدا. symptoms على مدها may include وحكم من نقول دون يعني خوف كستمات هدو أدي فصل كان penicillin داوين أو كسو جدا هدو لعل حساسية قوة على مدها خوف كان سكوار كدونه محي نقول دونه. نسيا للبا يوقف كدريم دونا فوميتين متى يوقف كدريم دونا راش إن نبرأ كسب حق التجركي إتش سكين يعن أسكورك كدون قفكان خيبت مقارك ويزن شنقر أو كم أخذ دون قفكان خيبت سبب به هدي لعل هذي أقول لكم بير قفكان استثقل قلب كدجال سرطو swollen around the throat يعنيه أجاركي سمكسلو فيريو أو برا سوقل دونا and respiratory collapse iyo in gabi ahaanba qaybta homereenkii oo hoos u dhac ku imaan doona the side effects of penicillin yani fasalkan loo yaqaan penicillin class daawooyinka ka soo jeedaan waxyeelada ay dadku qabi karaan maxay noqon karaan penicillin fasalkan penicillin kan generally cause guud ahaan wuxuu sababaa few side effects waxyeelo aad iskaga yar the most common si caadi ahaan badana side effects waxyeelada reported oo laga soo gudbiyay include waxa ka mid noqon karayo abdominal pain calool xanuun headache madax xanuun rash nabre injirka ka soo baxaan diarrhea shuban inuu qofku soo arki doono and taste deprivation in yani qofkan dhadhankii oo horaan u dareemi jiray inuu isbedel ku imaado